النبي عليه الصلاة والسلام وحاوت المامية أن إيمانكو إنو يهي دورية تضباطا أما دورية لحدا قيبات وحاو رأيو النبي يقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد ويضو هدي أنا يصحين دي أعماشا كالوردمي وحبك مجران marka iyadoo saxdaaba wixii kale tirsiis uu noqonaya taasoo u sarreeyay buu nabigu ku tilmaamay waxa ugu hoosaysa buu nabigu tilmaamay iimaankaasi imaatatu ladaa can tariiq jidka oo wixii dhibaya laga duwo ama dhagax ha noqdo qodax ha noqdo xashiish ha noqdo wixii bini aadam dhibaya oo jidka laga duwo idan inaynu jidkeenna nadiifsanaa waa wax tilmaamaya iimaankeenna inta uu leegyahay waa wax sheegaya dadnimadeenna sida awgeed nabigu calayhi salaatu wasalaam ninbuu wuxuu ku tilmaamayaa inuu janno gelayo ama dembigiisa la dhaafay xadiidku labada aree mid buu ahaa waxaanu ku helay buu nebigu leeyahay qodax uu laan ka jaray yacni laan qodax wadato waddada ku soo baxday oo dadka dhibi lahayd oo uu ka jaray dadka waxa ugu khayr badan buu nebigu yidhi anfacahum linnaas dadka anfaca ugu khayr badan yacni soomaalidu inta badan camalka khayriga ah hadduu qofku isdhaa camal khayriga qabo inta badan wuxuu yaqaanaa inuu masaajid dhiso ama inuu qur'aan akhristo ama inuu salaad tukado sax weeyaan intaasiba waa cibaado ilaahay loogu dhowaado laakiin waxaa cibaado ilaahay loogu dhowaado kala ah dadka waxtarkiisa ha noqoto qofka ajaysanoo wuxuu cuno la siiyey qof haraadan oo la waraabiyey qof dhib kala haysato oo loo fudaydiyey qof degaana oo degaankiisii loo hagaajiyey wax kasta oo anfac bini aadam u yeesha ayaa iyaguna ka mid ah cibaadaadka ugu waaweyn saa daraaddeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa dadka waxa u khayr badan anfacuhum linnaas dadka ka ugu anfac badan leh idan aniga dardaarankayga waa hal mid oo wuxuu yahay waxaynu qabanayno inuu ilaahay ugu dhowaano adduunka waa wax kooban laakiin meesha u baahan inaynu shaqo badan gashanna waa aakhiradeenii adduunkan ninka ugu badan waxaa laga yaabaa 60 sano 70 sano iyo wax la mid ah inuu joogo laakiin waxay naga damaysaa nolol infinity ah nolol aan dhammaad lahayn nolosha aan dhammaadka lahayn waxa wax ka tara waa waxaynu hadda qabanno waa laga yaabaa mushahar yar ama waxaan aad u buurayn inuu halka kaa soo galo laakiin inaanu kaasi noqon qasdiga inuu shaqaynayna inuu noqdo waxaad ilaahay ku raali gelinayso idan taasaa kaaga manfac badan inaad ilaahay raali geliso ama aakhiradaada inaad u qabsato waayo camalka wuxuu dee islaaxaa marka ilaahay dartii loo qabanayo qofka ilaahay dartii u qabanayaana ma daalo qofka wax kale wax u qabanaya yacni haddii aad isleedahay madaxdu ha ku ammaanto wax laga yaabaa markay maqan yihiinna dee inaad iska fadhido markay joogaanna inaad digdiglayso waxaa laga yaabaa haddii aad si leedahay lacag ku hel cidda lacagta bixinaysaa markay joogto inaad si fiican u shaqayso ciddaan lacagta bixinaynin markaanay jooginna inaad wax badan qabanin laakiin haddaad si leedahay janno ku hel waxaad ogtahay inaad kharash ka badan helayso saa daraaddeed bini aadamku kuuma muuqda ilaahay baa kuu muuqda ilaahayna waxaad ogtahay inuu ku arkayo mar haddaad bini aadamba qiimaynaynin waxaad qiimaynaysaa uu yahay rabbigaa inaad raalli geliso camal kastoo aad qabanayso si fiican baad u qabanaysaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay war midkiin hadduu shaqo qabanayo ha itqaaniya buu nebigu yidhi ha sugo sida u fiicana aad u qaban karto u qabo waxba adigu ha reebin waayo waxaad rajaynaysaa wax ka weyn in ilaahay kugu siiyo marka eraygaan idin leeyahay waxa weeyaanuun dowladda hoose kollayba mushaharkeedu waa iska yariyey soomaali oo dhammi waxay bixisaa waa iska yariyeen laakiin kollayba saacaddaad meesha joogto wax muuqda qabo saacaddaad si leedahay kollayba saacaddaa waad joogtaa saacaddaad meesha joogto adduun badan oo halkan jooga haddaad ku weyday adduun badan oo aakhiro jira ku shaqayso